الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawadayaal sidaad arkaysaan halkan waxaa ii yaala laba server oo waxa weeyaan noocoodu waa Huawei, shirkadda Huawei la yiraahdo ayaa samaysay oo ka magacooda halka ku yaal. Modelkuna waxa weeyaan sidaad halkan ka arkaysaan 2288H V5. shirkadda Huawei runtii waxaa lagu yaqaanay mobilada iyo waxyaabahaas, laakiin hadda serverada maxay ahayday storage-ka waxyaabahana imika way sameeyaan. runtii labadan server waxaan doonayaa inaan ka bedelo hard diskyada, ama aan cafwan inaan hard diskyo kale oo siyaadaha geliyo, sababtoo ah labadan server waxaa loo isticmaalayaa CCTV oo ah kamaradaha duuba xafiisyada iyo meelaha maartay dadku ay joogaan. marka serverkan hoose labada waad aragtaanoo laba disk ayaan geliyey. labadan hore 0 iyo 1 kaasi markii hore way ku sii jireen iyagoo way la socdeen. labadan disk ay ku kordhiyay. marka haddii ilaahay ka dhigo maanta waxaan eegaynaa sida looga bedelo hard disk marka serverkan Huawei-ga ah. waxaan ka soo saarnaa haddii ilaahay ka dhigo closure kan yar, waxa weeyaan waa dabool yar oo runtii iska plastic oo caaga. daboolka yar si aan wax ma taqaanaa dhas iyo waxaas aanay meesha u gelin baa loogu talagalay. waa laga saarayaa kaa. markaan kaa ka saaro hard disk gebigiisu intaas ayuu leeyahay. haddaba hard disk aynu gelinaynaa waa noocma waxa weeyaan waa tan, waa Seagate weeyaan, waana 2.4 terabyte SAS. waxa weeyaan markaas serial attached SCSI ayaa la yidhaahdaa. serial attached SCSI-gaas SAS waxaa loogu talagalay kombiyuutarada serverada ah. runtii kombiyuutarkaaga caadiga ee guriga desktopka ku arki maysid kuwan. desktopyada caadiga waxaa lagu arkaa SATA disk, SATA SATA kuwa la yidhaahdo. marka tani waa 2.4 terabytes. way ka dhaqso badan yihiin hard diskyada caadiga ee kombiyuutarada guriga noogu xiran. kuwa hard diskyada caadiga waxaa laga yaabaa inay 7200 oo RPM waxaan la yidhaahdo revolutions per minute ay yidhahdaan. waa inta jeer ee ay mataqaanaa diskiga meesha ku jira ay wareegayso. waa speedka ay ku wareegayaan diskyadu markaa revolutions per minute-ku. 7200 baa ugu badan storage-ka ama hard diska guryaha iyo kombiyuutarada dee caadiga lagu isticmaalo. tan iyadu waxa weeyaan keedu waa 10,000 revolutions per minute, 10,000 oo revolution minute-kii. marka diskiyada ku jira diskiya yaroo CDO eego ayaa ku dhex jira. marka haddii hard diska la furo, qofkii doonaya uu ka arki karaa Google-ka dad doonaysa aragtid diskadu say weegyihiin. waa sinxiyo yaryar baad moodaayo bira. marka sinxigii kastee ku jira halkaas iyo diskigii kastee ku jira 10,000 oo jeer ayuu wareegayaa minute-kii. waayahay haddaba markaan kasii gudubno taa ka xaggiisa dambe waxa weeyaan waa iska fududahay sida loo gelinayaa. badhin yaroo halkan ku yaallo bay clip garanaynaa. badhinka yaresar ayaan clip geeyey. dabool yar baa isfuraya. daboolkaasi markuu isfuro ayaa haddii alla ka dhigo saasuu manu gelinayaa storage-ka. waan ku riixayaa, dabeedna daboolkaa yaraan furay ayuu baan clip ku siinaya. markaa wuu gara. waayahay ka labaad soo saar isagana 2.4 iyo 2.4 haddii ilaahay ka dhigo waxa weeyaan 4.8 terabytes. waa baaxad aada u weyn. markaan haddii ilaahay ka dhigo intaa aynu gelino tan aynoo fur kaadaan tan aynu furnee 4.8 terabyte-keena markaynu gelino waxa weeyaan wax la yidhaahdo storage pool ayaan samaynaya haddii ilaahay ka dhigo. storage poolku waa hard diskyadii oo laysu geeyey. markaad Windows seebaha marka la galo ayaa storage pool wax la yidhaahdo lagu samaynayaa. hard diskska ayaa laysu geenayaa oo meelbaa laysugu wada geenayaa si ay baaxadoodu ay u weynaato oo mataqaanaa dee waxyaabahaad meesha markaa ku kaydsan kartaa ama spaceka waxa la yidhahdaa wuu sii bato. waayahay tan already wanu sameeyey storage pool kan hoose. oo imika haddaan seebaha u galno Windows Server 2016 32 gig of RAM ayaa ku jira, 32 gig oo RAM. marka ku filan CCTV kameraha. fiidiyoda lagu duubayo CCTV kamaradaha lagu xiri doono seebahana inta badan waxaa laga yaabaa bil wax ka badan inaan la kaydsan, oo markii bil la duubaba bisha marka bil muddo buri la hayo ee la daayo kadib bisha labaad la masaxo. marka ku filan
hard disks haddaynu eegno markaan storage poolkaan sameeyey storage poolka kadib waxaan sameeyey wax la yidhaahdo virtual diskska ayaa markaa storage poolkii oo ahaa dhisyadii aad sugaysay labadii dhiski aan sugayey oo tahay 2.4 iyo 2.4gii xoogaa yar baa ayaa ka go-an laakiin dhisyadii la sugayey aad virtual disk wax la yidhahdo ka samaynaysaa virtual diskkaas ayaad markaa format garaynaysaayo dee sidii la yaqaanay NTFS ama anigu waxaan isticmaalay wax la yidhahdo REFS oo ah formatka cusub ama qaab masaxeedka cusub ee Windows Server 2016 ay isticmaasho oo ah resilient file server ayaa la yidhahdaa marka waxa weeyaan resilient file system ayaa la yidhahdaa cafwan resilient file system waa digaarka REFS resilient file system waxa weeyaan NTFS-kii wuxuu ku dhaamaa haddii ay diskiga wax ka sii noqdaan diskiyadu iyagaa dib isu kabaya oo markaa isagaajinaya waa format aad u wanaagsan oo markay xagga storageka loo isticmaalayo de 4.32 terabyte wataa magacaan u bixiyna waa magacaas hadhow CCTV-ga lagu isticmaalaya waana laba disk bay ka koobantay adigu markaad iminka eegaysid waxaad moodaa inay hal disk tahay oo 4.36 laakiin waa laba disk ay ka kooban yihiin marka waxaan rajeynaya insha allah inaad intaa aad ka faa'iideen storage poolka iyo virtual disk iyo sida loo sameynaya insha allah video kale ku arki doona haddii ay ka dhigo intaas ayuun bay ka kooban tahay hard diska laga bedelayo seebaha wax aad iyo aad u fudud weeyaan de waxaan rajeynayaa inay insha allahu tacaala wax ka faa'iideen wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu